السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha muslimiinta ah oo meel kasta oo aad joogtaan waxaan si naxariis la idinka codsanayaa kalaamullaahi casa wajalla idinkoo ka rumaynaya inaynu dar ilaahay isugu naxariisanno xilligan adag ilaahay fidnada socota iyo fayrisyada faafa inuu kaa badbaadiyo u gargaar walaalkeennan aadka u dhiban caafimaadku waa shay qaaliya adduunka bini'aadankuna waa shayga ay u tartamaan hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac waa hooyo ku nool magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxay haysaa wiilkeeda oo xanuunsanayay muddo ku dhow 2 sano wiilkan yar oo lagu magacaabo Cabdillaahi Cabdirashiid Abakar ayaa waxa uu dhulyaal ahaa oo uu dhulka jiifay muddo ku dhow 2 sano waxaana sida ay sheegtay hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac wiilkan yar maskaxda kaga soo baxay buro taasi oo sababtay inuu gabi ahaanba indhabeelo wiilkan yar ee Cabdillaahi Cabdirashiid Abakar wiilkan yar oo muddo 2 sanadood dhulyaal ahaa ayaa waxa uu suurtagali weyday inuu kaco mana istaago habeenkiina ma seexdo hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac oo ah hooyada dhashay wiilkan yar ee gacanta ku haysa ayaa sheegtay in aan xanuunka wiilkeeda haya gudaha dalka waxba laga qaban karin balse uu u baahan yahay in loo diro qalliin dabadeed waxaana ay sheegtay hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac in wiilkan yar hadda ka hor dad muslimiin ah isku tageen oo lacagtii ka bixiyeen lagaga soo jari lahaa burada ka soo baxday dhinaca maskaxda waxaana lagu guuleystay qalliinkaasi waxaana la soo geliyay tuumbo ka bilaabmaysa ilaa madaxa soconaysana ilaa xubinta taranka bini'aadanka wiilkan yar oo indhala ayaa dhakhaatiirta u sheegay markii tuumbada la geliyay in lagaga saaro muddo 6 bilood ah balse imika waxay ku jirtaa muddo ku dhow 2 sanadood taasi oo sababtay in wiilka yar indhabeelo mana socdo mana jiifsado habeenkii Saynab Cabdiraxmaan Jaamac oo haysa 7 carruur ayaa sidoo kale waxa ka jiran ilmo yar oo kale hooyo Saynab Cabdiraxmaan Jaamac ayaa sidoo kale sheegtay in wiilkeeda Cabdillaahi Cabdirashiid Abakar ay bishii ku baxdo daawooyin qiimaha lacagtu ay gaadhayso $560 taasi oo reerkani aanay awoodi karin inay lacagta intaa la ku bixiyaan bil kasta waxaana ku jiraan sandaqad yar oo ku taala magaalada Hargeysa dawada aad siisaan qiimaheedu intuu taagay qiimaheedu bishii $560 كبعد جدا بمرة إسلام كان هاي مرة عدة واحدة إلا لا بريان عد مسلم هذا مرة وقف كده بحين لما معناتها هذا هي لوست على رضا وكاسة دمعت الدول بيجتها haddaba walaal caafimaadku waa shay muhiima hooyadan la dhibaataysan ilmaheeda in la caawiyaa diinteena islaamka ee macaan ayaa ina faraysa mar kasta inaynu is caawino qofkii dhibaataysanna aynu dhibka la qaybsanno maadaama aynu ummad islaama nahay walaalkaaga muslimka caawi caafimaadku waa shay qaaliya maanta dad caafimaad qabto bari wada xanuunsan kartaa qofka xanuunsanaya oo walaalkaaga muslimka ah soo wixii aad haddaynaan isgarab qaban amaan la isgargaarayn oo gurigeenna kii xigay gaajo iyo cudur iyo loogu go'ayo diihaal gacan laysu fidiyiyo garashana dhammaatoon goonigoosad wada nahay oo guulahayn siduu yidhi qof walbaaba gees maro god madow hadda god baa ina sugaayo geeridu ma dheero garantii ma haynee xaggee baan gelaynaa waxaa nala gudboonayd intaynaan halkaas gelin wanaag loo gunaystiyo gacmo buuxsi iyo khayr 50 sentina ha noqotee ugu deeq sadaqa yaraan male rabbigeenna runta caanka ku ah baa ballan qaaday inuu inoo laban laabayo